بشار الأسد سوريا وسقعر الله أيام ما هاد أردن له ضلك وإن قد حيا وأنا لما تابتان وحول بوائن أو سيدي هذا وإنه بلاوانه سوريا عصب أو كل سن عدالة حرية إن نبت قليو سوريا وسقعر نكي على بشار الأسد أو دبعته أو جسي أو تذكيس أفريقيا قعدكم يولي بالصومالية قفل بقى أجن سوري دبعته ما سمرتي شلay ayuu ku isaga cararay wadankii oo meel ay la habartay lama yaqaano dagaalamayaasha mucaaradka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in caasimada dalkaasi Dimashq la xoreeyay saacado kadib markii ay ku dhawaaqay in madaxweynaha Bashar al-Assad uu ka cararay magaalada una aaday meel aan la garanayn sida ay sheegeen telefishinka ka soo baxay Suuriya Bashar al-Assad Suuriya ku dhigay qof walba ayaa kaliya taliska horta dhibaato ayuu leeyahay wadanku isaga cararay maanta banaanbaxay ayaa ka socda Suuriya dabaaldegay ee ku faraxsay in Ilaahay ninkaas ka hor waday oo cararay meel oo carab yaraatay ma jirto magaalada ka baxabo intaas sano ayuu Suuriya dul fadhiyay ahay kaliya talis dhibaato badan dadkiisa Afrika iyo qoyadku waliba gaar ahaan Soomaaliya waa ku aragtay ayuu dowrsanay laakiin Muqdisho Suuriyaan kaarar wata Ilaahay oo baryaay Soomaaliya baryaay wili dad weydiisanay maanta cunno weydiisanay Suuriya waxay wadan qani ay ahayd wadan dhaqaale ay laakiin asaga ayaa saa ka dhigay Bashar al-Assad maanta waa carray wadanka ayuu isaga carray xogaha mucaaradka ayaa ku dhawaaqay in Suuriya ay ka xorooday xukuntalihii Bashar al-Assad iyagoo la sheegay in ay madaxweynaha uu ka baxsaday dalkaasi oo ka carray oo magaalada ka carrabo mar dambe Bashar al-Assad way ka raadsan xukun xumadiisa dhibaatada uga Suuriya maanta dabaaldega ayaa ka socda Suuriya oo mucaaradkii iyo shacabkii ayaa dabaaldegaya oo beesha wada degay dabaaldega ayaa ka socda waliba Muqdisho dadka jooga Suuriyaanka xataa maanta way faraxsan yihiin oo dalkooda ay ku laaban doonaan oo baahida way ka bixi doonaan tuugsi way ka bixi doonaan Bashar al-Assad dhibaato xoogan ayuu u geystay Suuriya qof walba ayaa og shalay ayuu isaga cararay oo carrabo meel oo lama yaqaano sababtoo danta ayaa ka daba imaatay xabada ayaa ku bilaabatay markuu arkay la qabarabo wada isaga cararay dambiile wuxuu ahaa wadanka dambi weyn uga soo ahay mucaaradka ayaa ku dhawaaqay in uu dhamaaday ama xukunkii Asad Bashar al-Assad dadweynaha ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn kadib markii dagaalamayaasha mucaaradka ee maanta ku dabaaldegayaan caasimada Dimashq madaxweynaha Bashar al-Assad meel oo ka baxay laada lama yaqaano oo fagaaraha weyn ay dib magaalada isugu maadeen mucaaradka ayaa qabsanaya caasimada Suuriya dadku waxayna ku damaashadayaan fagaaraha magaalada Dimashq aad bay u faraxsan yihiin oo Ilaahay wuxuu ka hor wareejiyay nin macagaga oo waxba aagalin oo Suuriya u dhameeyay dadkeedii ka dhigay qaxooti ka dhigay baabi'iyay oo cagta mariyay Bashar al-Assad mucaarad wuxuu ahaa madaxweyne meenkaas dadkiisa ayuu laayay wadankiisa ayaa asaga baabi'iyay wuxuu u dhameeyay kaliya dadkiisa dhaqaalihii dalka lahaay shacabkiisa hantidii wixii dhulka ayuu dhigay oo baabi'iyay oo habeeyrat asagoo kaliya xukunka inuu sii haysan rabo ayuu wuxuu ka doortay in dadkiisa qaxooti ka dhigo Afrikada dhaween Ethiopia qaar Kenya dhaween qaar xirimin Soomaaliya u badan yihiin way joogaanba waa la caawiyaa kambaniyada shirkadaha caawiyaan saakina qaaraba isaga ayuu qaran xabad ku yaala xamar la keenay la caawinay waxa soo dhan waxa u geysay Bashar al-Assad oo baxsa saacado kor ayuu wadanka baxsaday meel ay hadda lama yaqaano intaas ayuu wadanka burburiyay dhibaato gaarsiiyay dhulka dhigay maanta Ilaahay ayaa ka dul qaaday dabaaldeg ayaa ka socdo caasimada Dimashq Suuriya maanta way dabaaldegaysaa oo umadiina ma ay isugu maadeen waxayna ku faraxsan yihiin in Ilaahay ninkaas ka hor wareejiyay Bashar al-Assad wadanka dhibaato ayuu u geystay qof walba ayaa og oo Ilaahay ayuu maadnaqayaan maanta xabada iyo dabaaldegayna taangiiri iyo ka cararay madaxtooyadii maanta waa la qabsaday macna ee boorkii way degeen mucaaradkii intaas ay Bashar al-Assad iska hayay wadanka oo xoog ku heysay laga qaadi karin dadkii dunyadii meel walba dhulka ayuu dhigay dadkiisa qaxooti ay ku Afrika shaqare muuqaalka Bashar al-Assad oo isaga cararay wadanka